وسؤاشي تضباطا يسدحات. السلام عليكم شيخ أنيقا يحاسكيقا أيا حلي رمضان فرق عيار سميني وحق الموت نمد حمرين لكن وحا إيقايمد بيه صونكيقينا سيديسي أيان كسي وتي كدبنا وانقل لي وحكا لا اللي يقول لي هاي جزاك الله خيرا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، ruuxa haddii isagoo sooman uu galmo sameeyo inuu soom ka jabayo waa laisla waafaqsan yahay, waa ijmaac. inay kafaara ku waajibaysana waa laisla ogolyahay. laakiin haddii uu taataabasho ama dhunkasho ay shahwadu kaga timaado isagoo sooman, waa la isku khilaafsan yahay maxaa ku waajibaya. sida xooga badan ee saxiixa ah wax kafaaraa kuma waajibayso, laanna kafaaradu galmaday ka waajibtaa ee kama waajibto wixii galma aan ahayn, sida daahirka xadiidka nebigu uu yahay sal alla alay wasalam. inayna kafaara ku waajibayninna waa madhabka asxaabu ra'yi أبو حنيفة iyo ثوري ayaa laga wadaa. الإمام الشافعي أحمد بن حنبل waxaana doortay الإمام بن منذر inaan wax kafaara lagu lahayn. waxaa daliilu ah الدليل هو عدم الدليل. waxaa daliilu ah wax daliiloo waajibinayaan lahaynin, taasaa daliilu ah. laakiin culimadu waxay leeyihiin taana taa u gudbin waxaa ku waajibayay qalle oo maalintii uu jabiyey waa inuu soo qalleeyo, waana sida uu sameeyey saa'ilku. marka qallahaasaa laga rabaa. masalada kale baraarujinta mudani waxay tahay hadduu marka horeba ka baqayo inuu biyo ka yimaadaan oo taataabashada ama dhunkashada biyo kaga yimaadaan inuu ka fogaadaa habboon, sida ay qabaan jamaahiiru ahlilcilmi. maxaa yeelay maadaama ay keeni karto soonka jabidiisa, wax kastoo soonka inuu jabo keenaya waa inuu ruuxu ka fogaado. wallahu aclam.